Waxaan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada kanaalkeena Horyaal Media. Maanta waxaan idin hayaa qormaad u xiiso badan taas oo ah dhowrka qof ee ugu saameynta badan Soomaalida dhexdeeda ee iyaguna waliba Soomaali ah. Dhowrkaas qof oo siyaabo kala duwan u saameeya Soomaalida hadday tahay xagga diinta amaba xagga suugaanta. Daawasho wacan. Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi waa hal abuur ama abwaan ama gabayaa qofba siduu u yaqaano qarnigii 20aad ilaa qarnigan 21aad wuxuu ka mid yahay shamacyada nuuraya ama ifaya ee ku jira fanka Soomaalida. Waxaan u tiriyay gabayaad u badan iyo maansooyin. Waxa uu inta la og yahay tiriyay maansada ugu dheer maansooyinka Soomaalida taas oo ah dabahuwan. Bal haddaynu si fiican u dhuuxno isagoo oo sharaxaya maansada sirta nolosha. Daawasho wacan. saaxiibkay waa yaale waa Rashiid Sheekh Cabdilaahi suurtuu dhalay heede waa intii aan ku halqabsaday waa Saara Rashiid suurtuu dhalay heede waxaan adiga kuu saantay dadka kaaga soo soocay sahra kuugu yeedhay siduu aabbahaa heede sama ii faraan heede kuu siinayaa heede sooyaalka taariikhdu iyadaan sal guurayne murtidaan saray heede sadar kuugu qorayaay heede saray heede curad suubanay heede sumadii Rashiid yeelo iyo weyldiisaadu iyo sawricii hooyo sinjigii hablaagiiska Sheekh Maxamed Cabdi Umal waa mid ka mid ah shamacyada culimada Soomaaliyeed waxaanu ku nool yahay dalka Kenya. waa sheekh ka fadwooday fadwooyin badan jeediyeyna muxaadarooyin aad u fara badan kuwaas oo uu kula dagaalamay dhammaanba calmaaniyiinta iyo caqlaaniyiinta amaba mulxidiinta. Sheekh Cabdi Umal oo sharaxaya su-aal ka timid xagga guurka bal aynu si fiican iyadna u dhuuxno oo aynu wada daawano. بسم الله الرحمن الرحيم مهر حدكو لما قورك قرصون واحد شيرا ما إنو سنشيرين إذن كابا الشيقيبا واحد تويا تقتل مانتا واحد تويا دو محبي حلاليسا يا حداد عولا حدو ما حلال بيكون نغني ما يحتويا وحما حلاليسا sidaas daraateed xatooyo waa xatooyo hadday xoolo gasho iyo hadday gabadh gasho guur gashaba xatooyo waa xatooyo guurka xatooyada ah ee nikaaxu sirri culimadu u yaqaanaan Sheikhul Islaam Ibn Taymiyyah wuxuu leeyahay nikaaxu sirri baatilun bilaa khilaaf guurka qarsoon wax ka jira ma leh la iskumana khilaafsana marka khudbasireed iyo waxani laalaabkani wax jira ma aha xalaalna lama dhuunto lama qarqarsado. Sheekh Maxamed Sheekh Cumar Dirir waa mid ka mid ah haldoorka culimada Soomaaliyeed waxaanu ku nool yahay Somaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa. Wuxuu mas'uul ka yahay ama tujiya masaajidka Rusheeye ee ku yaala bartamaha magaalada Hargeysa. Wuxuu galay fadwooyin aad u badan iyo muxaadarooyin fara badan. waxaanu ka mid ahaa guddidii dhexdhexaadin jirtay siyaasiyiinta Somaliland marka ay iskhilaafaan. bal aan dhageysanay isla su-aashii hore oo kale isagoo inoo sharaxaya. meherka sirta ah maxaa sirba kugu wataba meherka looguma talagelin inuu sir noqdaba gojaxa geel wax la qariyo ka weyn bay dhahaan Soomaali jeeni geel miyaa la qarin karaa hadduu imika ninku yidhaahdo jeeni geel baan halkaa gashanaya ama lug geel dabeetana waan soconayaa ma kaa socon mayso waa fashilanta xagga dambe ka muuqanaysa reer dhan baan qarinaya inan dhan oo aabba iyo hooyo iyo ehel soo korsaday oo halkaa aad ku jeclaanaysa iyo miisaanka la soo gaarsiiyay baan qarinaya waar waxaanu diidnay xoolaha in la xadaa la diiday dee dadka xadiistooduna ka daran bal ka waran haddii imika uu qof alaab yar kaa xado waad qaylinaysa ka qof dhan kaa xaday ka waran. Sheekh Mustafa Xaaji Ismaaciil Haaruun isna waa mid ka mid ah shamacyada nuuraya kaas oo inta badan qurbaha ka gala muxaadarooyin aad u faa'iido badan kuwaas oo aad looga wada helay. waxa uu ka mid yahay culimada Soomaalida loogu jecel yahay bal aynu dhageysanay isagoo sharaxaya istighfaarta amaba dambi dhaafka.
istikfaartu markay cibaadaadka daba dhacdo waa sida tan oo cibaadaadka iyo daacaadka waaweynee layna faray oo dhan waxa daba yaalla istikfaar maalan xajku waa arkaanul islaamku ka mid yahay cibaadaadka la sameeyo kuwa ugu waaweyn buu ku jiraa goob la istaago goobaha ugu waaweynee bini aadam ilaahay caabudaya istaagana carafa ka mid ah markaad carafo istaagtay ee ilaahay maantoo dhan weynaynaysay ee baryaysay baa ilaahay wuxuu ina yidhi uma afiiduu min xaysu afaada annaas wastakfiru allaha ina allaha gafuurun raxiim istaaga baa ilaahay yidhi halka dadku istaagayo qurayshi waxay odhan jirtay xaramka annagu ka bixi mayno carafi xaramka way ka baxsanta markaa munaya intaan xaramkaanu joogaynaa waxaa la yidhi baxa oo taga halka dadku istaagayo oo weliba halkaa markaa istaagtaane soo dareertaane dib u soo noqotaan waxaa camal samayseen oo dhan waxaa ku dartaan istikfaar baa ilaahayna leeyahy subxaana wa tacaala yacni xaj innagoo ku jirna baynu ka dabageynaynaa maxay istikfaar waxaa layna baray oo nebigu ina baray calayhi salaatu wasalaam salaadda markaynu tukanno waxa koowaad aynu qabannaa waa maxay nebi maxamed markuu salaamo naqsado kow 3 jeer buu odhan jiray astakfirullah 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 ma macsi buu samaynaya oo ka astakfirulaysanayay maya salaad buu ku jiray laakiin waa maxay wuxuu leeyahay ilaahu xaqaagii weli maan gudin anigu intii aan awoodayay waan sameeyey waynu soo dadaallo weysaysanno soo kacnayo ilaahay hor nimi ilaahay way soo taagnay intaynu awoodi karaynay waa dadaallo waa samaynay laakiin waxaynu rumaysannay marar badan baynu baxaynay oo qalbigeennu meel kala jirnay mar baynu waxaynu akhrinaynay ayna fahmaynay mar baynu adduun iskaga mashquulay haddana salaadaynu wadnay dabeetana waxaad leedahay ilaahu intaasun baan maanta awoodaya intaa iga aqba waxaad ka dabageynaysaa markaa maxay istikfaar markaad salaamo naqsatayba waxaad leedahay ilaahu xaqaagii maan gudanin istikfaartani waa ictidaar markaaad raacinayso ilaahay qur-aanka wuxuu inooga warramayaa kuwa jannada gelaya ina almuttaqiina fii jannaatin wacuyuun aakhidiina maa aataahum rabbuhum innahum kaanuu qabla dalika muxsiniin kaanuu qaliilan min alleyli maa yahjacuun ilahay wuxuu yidhi kuwa muttaqiinta ah ee alle ka cabsaday aakhiro beero iyo ilo biyood iyo jannooyin bay leeyihin aakhidiina maa aataahum rabbuhum waxay qaadanayaan wixii alla siiyey baa la yidhi